waxaan doonayaa inaan idin caddeeyo dhammaan dadka reer Puntland ee sida khaladka ah wax loogu sheegay in ciidamada amniga ee ku sugan Puntland inay yihiin hal ciidan magacyadu ha kala duwanaadaan police ha ahaado BSF ha ahaado BMBF ha ahaado PISA ha ahaato wixii dhammaan ciidamada amniga ee Puntland waxay leeyihiin xiriir shaqo iyo chain command ay iskula shaqeeyaan iyo mid ay kula shaqeeyaan maartay golaha xukuumadda oo madaxweynuhu uu yahay taliyaha guud ee ciidamada iyo gobolada ama gobolka bari sida waxa jooga wakiilka madaxweynaha oo ah gudoomiyaha gobolka marka dib ugu soo noqdo hawlgalka ka socda Boosaaso waa weedeen wixii la soo maray maalmihii ugu dambeeyay taasina waxay sababtay inaan hawlgal qaadno kaasoo noqon doona mid ciidanku magaalada dhexdeeda ay degaan ayna noqonin mid inta la canjarafeeyo lagu wareegaysto dabeedna laga tago taa waa qorshe dejisan weey haddaba waa sidee ay ciidamadaasi uga hawlgalaan magaalada gobolku wuxuu leeyahay guddi amni gobol wuxuu leeyahay gudoomiye gobol waxa ku sugan taliye ciidanka booliska waxa ku sugan taliye ciidanka badda waxa ku sugan taliye ciidanka BSF waxa ku sugan agaasimihii guud ee BISA waxa jooga gudoomiyihii duqi magaalada hanaankii dawladeed ee ay Puntland lahayd oo dhan uu ku dhameystiran yahay dhammaan ciidamadaasi waxay hoos tagaan guddiga nabadgelyada ee gobolka gudoomiyaha gobolka ayaana u ah gudoomiye tala kasta iyo amar kasta iyo shaqo kasta oo la fulinayna halkaas ka soo baxa waxa taliye noo ah oo oday guud noo ah Jaamac Xudiin waxa gudoomiyaha guddiga nabadgelyada noo ah gudoomiyaha gobolka intanada kalena waxaan la taliyay ciidamada iyo xubnihii kale ka shaqeynaya ciidanka tilaabo aanay guddigaasi xaqiijinna cid qaadi kartaa ay ma jirto ciidanka amar diidayna ma jiro sarkaalka heeganka ee leh shaqada ee guud ee gobolka ayaa amarka laga qaadanaya si isku mid ah ciidamada waxa la siiyay aag baa la siiyay mararka qaarkood way wada hawlgalaan ma islaayaan haddayna amarka la qaadanayn waxaan cadaynaynaa marka koowaad iyo marka labaadba in warka la sheegay iyo warbixinta la bixiyay dhammaantood ay yihiin waxba kama jiraan